عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داود يال كسو دوادا ورك ورباهين تديغان تي في قدبدات كو داودوتان وحا كاميدا دولد سويدان وكوردينيسا تاغيرada ay siinayso dawladda Soomaaliya dalal ay Soomaaliya ku jirto oo codki ay ku lahaayeen qaramada midoobe waay doona dagaalamayaasha al-shabaab oo sheegay in ay la wareegeen saldhig muhiim ah oo ku yaala gobolka Shabeellada Hoose kooxda TPLF oo laga saaray xisbiyada dalka Itoobiya in ka badan 3 sano kadib duulimaadyadii Qatar iyo Masar oo dib loo furay taasi waxay ahaayeen qodobadii warkan ugu doorgaroona daawadayaal haataase ku soo dhawaada warkii oo fidsan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka xigeenka dawladda Sweden u fadhiya Soomaaliya labada mas'uul ayaa kulankooda uga hadlay amniga taageerada ay siiso bulshada Soomaaliyeed oo qayb weyn ka qaadanaysa horumarka iyo gaar ahaan gobolka Banaadir ayay ka wada hadleen labada mas'uul gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ugu mahad celiyay danjire ku xigeenka Sweden tababarada ay siiyaan shaqaalaha dawladda hoose ee Xamar safiir ku xigeenka safaaradda Sweden ee Soomaaliya ayaa ballan qaaday in dalkiisa uu kordhin doono taageerada uu siinayo shacabka Soomaaliyeed si gaar ah gobolka Banaadir si buu yiri loo ambaqaado horumarka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Muqdisho ciidamada dawladda Uganda ee howlgalka AMISOM ka tirsan ayaa waxa ay isaga baxeen deegaan ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose waxna la sheegay in durbaba deegaankaasi ay la wareegeen dagaalamayaasha ururka al-shabaab deegaanka ay ciidamada AMISOM isaga baxeen ayaa waxa lagu magacaabaa Mashalaaye waxa uu ku yeelaa inta u dhaxaysa degmada Qoryoole iyo Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose al-shabaab ayaa warar ay ku daabaceen baraha ay ku leeyihiin internetka waxa ay ku sheegeen in si nabadgelyo ah ay ku wareegeen deegaanka Mashalaaye kadib markii ay isaga baxeen ciidamada AMISOM wararka laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in ka hor inta aysan deegaankaasi tagin dagaalamayaasha al-shabaab ay dadka deegaanka ku qamaameen xeradii ay ka baxeen ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda ee ku howlgala magaca AMISOM guddiga doorashooyinka qaranka dalka Itoobiya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in liiska isdiiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed ee dalkaasi laga saaray xisbigii ka talin jiray gobolka Tigray TPLF ka gadal markii howlgallo military lagu qaaday bishii November ee sanadkii aan ka soo gudubnay guddiga doorashada ayaa ku eedeeyay TPLF in ay ka dambeeyeen qalalaase ka dhacay dalka Itoobiya iyaga oo sheegay in halis ay geliyeen guud ahaan jiritaanka dalka Itoobiya sidaas daraadeedna aanay TPLF boos ugu banaanayn dalka Itoobiya sida oo kale guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa 3 xisbi oo kale oo ka jira dawlad deegaanka Tigreega waxa ay ka codsadeen in ay sharaxaad ka bixiyaan doorashadii ay kala qayb qaateen TPLF ee dhacday bishii September ee sanadkii aan soo dhaafnay qaramada midoobay ayaa sheegtay in 9 dal oo Afrikaana isla markaana ay ka mid tahay Soomaaliya lagu leeyahay lacagaha ay bixiyaan dalalka qaramada midoobay sida daraadeedna meesha ay ka baxayso xuquuqda dhanka codeynta ah ee qaramada midoobay dalalkaasi ay ku lahaayeen waa haddii ay bixin waayaan lacagaha laga rabo ee looga talagalay in lagu kaabo miisaaniyadda howlgallada qaramada midoobay tusaale ahaan Soomaaliya waxa laga doonayaa inay bixiso 1,443,640 dollar dawladda Iiraan ayaa laga doonayaa inay bixiso 16,251,298 dollar Kongo ayaa laga doonayaa inay bixiso 90,844 dollar Zimbabwe waxa laga doonayaa inay bixiso 81,770 dollar Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa laga doonayaa inay bixiso 29,395,000 dollar South Sudan ayaa laga doonayaa inay bixiso 22,804 dollar Niger ayaa laga doonayaa inay bixiso 6,733 dollar Comoros ayaa laga doonayaa inay bixiso 871,632 dollar Libyana waxa laga doonayaa inay bixiso 705,391 dollar haddii dalalka aan kor ku soo xusnay lacagtan ay bixin waayaan xaq uma yeelan doonaan in ay ka codayaan golaha qaramada midoobay iminka ku soo dhawaada qodobadii dibadda
duulimaadkii ugu horreeyey ee Qatar Airways ay kaga duushay magaalada Dooxa ayaa waxa ay ku tagtay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar kadib markii in ka badan 3 sano uu khilaaf xoog leh u dhaxeeyay qaar ka mid ah dalalka khaliijka oo ay horkacayaan boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo isu taagga Imaaraadka Carabta oo lagu daray waddanka Masar. diyaaradda Qatar ee Qaara 1032 ayaa waxaa la qorsheynayaa in ay ka dhoofto gegada garoonka diyaaradaha magaalada Qaahira. dhawaan boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxaa sheegtay in si degdeg ah ay u furan doonto safaaradeedii magaalada Dooxa, taasi oo muujinaysa in gebi ahaanba uu meesha ka baxay khilaafkii adkaa ee u dhexeeyey xulafada boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo waddanka Qatar. waa hagaag warkii aad ka daawanayseen warbaahinta Deegaan TV ayaa intaa ku dhan. warkan warka xiga intaan ku kulmi doono nabad. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو ونكسن داود يالكو سو دوادا ورك ورباهينتا Deegaan TV qodobadaad ku daawo doontaan waxaa kamida midowga murashaxiinta oo ka digay in siyaasadda iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee Eritrea tababarka u jooga qarax ka dhacay magaalada Muqdisho iyo dibadbaxyo looga cabanayo dawladda Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo. qodobada dibaddana waxaa kamida madaxweyne Donald Trump oo isaga guuray aqalka cad ee waddanka Mareykanka. intaasay waxay ahaayeen qodobadii warkeen ugu door korona haatase ku soo dhawaada warkii oo fidsan. afhayeenka midowga murashaxiinta Soomaaliya Ridwaan Hersi Maxamed ayaa waxa uu sheegay in ay ka walaacsan yihiin cabashada waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtooda tababarka ciidan looga qaaday dalka Eritrea balse nolol iyo geeri midna aanay meel ku sheegin. shir jaraa'id oo warbaahinta uga qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay arkeen waalidiin fara badan oo caruurtoodu la geeyay dalka Eritrea balse ka walaacsan inay ka galeen dagaalkii TPLF ee waqooyiga dalka Itoobiya. waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in ay ka degayaan midowga murashaxiinta Soomaaliyeed in la siyaasadayo waalidiinta qaba walaaca ku saabsan caruurtooda, isaga oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uga baaqay in uu faahfaahin rasmi ah ka bixiyo halka dhalinyaradaasi la geeyay. dawladda Soomaaliya ayaa maalin ka hor waxa sheegtay in wararka warbaahintu ay baahiyeen ay been tahay, isla markaana aanay jirin wax ciidamo ah oo Soomaaliya loo tababarayay isla markaana joogay waddanka Eritrea oo ka qayb qaatay dagaalkii ka dhacay dalka Itoobiya, si gaar ah dagaalkii dhex maray xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo maamulkii TPLF ee waqooyiga dalka Itoobiya. magaalada Gaalkacyo gaar ahaan koonfurta magaaladaasi waxaa ka dhacay dibadbaxyo ay dhigayeen qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo. hayeeshee ciidamada booliiska ayaa ugu dambeyntii rasaas ku kala ceyriyay. dadka banaanbaxa dhigayay ayaa u badnaa hooyooyin sheegay in caruurtoodu dawladda Soomaaliya ay tababar uga qaaday dalka Eritrea, iyagoo sheegay in caruurtooda nolol iyo geeri midna aanay imika ku ogeyn. dawladda Soomaaliya ayay ka codsadeen in sidan loo dhaamo oo haddii caruurtu ay nool yihiin lala hadalsiiyo si qalbiyadoodu u qaboobo. banaanbaxyaasha ayaa taageero ku gubay laamiga magaalada Gaalkacyo, iyaga oo ka dalbaday madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda dawlad goboleedka Galmudug in caruurtooda tababarka looga qaaday waddanka Eritrea ay faahfaahin ka bixiyaan. intii dibadbaxa uu soconayay ayaa waxaa goobta tegay ciidamada booliiska Galmudug, kuwaasoo ugu dambeyntiina rasaas ku kala ceyriyay shacabkii dibadbaxa dhigayay. walwalka ay qabaan waalidiin badan oo Soomaaliyeed ee ku aadan in caruurtoodii ay ku dhinteen waqooyiga dalka Itoobiya ayaa sii kordhayay maalmihii la soo dhaafay. dawladda Soomaaliya ma aanay bixin wax faahfaahin ah oo ay ku qanci karaan waalidiinta baraha bulshada iyo warbaahinta ka cabanaya ee doonaya in caruurtooda nolol i geeri mid un ay ku ogaadaan. gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Maxamed Cabdullaahi Cariif ayaa qarax lagu la eegtay magaalada Muqdisho. gudoomiyaha ayaa markii qaraxa lala eeganayay waxa uu marayay inta u dhaxaysay isgoosyada Fagax iyo Tawfiiqa. qarax miino ayaa waxa la sheegay in uu qabsaday gaariga gudoomiyaha, iyada oo ay warar kala duwan ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay qaraxaas. wararka la helay ayaa qaarkood waxa ay sheegayaan in qaar ka mid ah ilaalada gudoomiyaha Yaaqshiid ay qaraxa ku dhaawacmeen, isla markaana mid ka mid ah dhaawiciisu uu aad u culus yahay. ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa tegay halka qaraxa uu ka dhacay, iyaga oo halkaasi ka sameeyay howlgallo ku aadan amniga.
tani waxaa imaanaysaa iyada oo maalinkii shalay qarax sidan oo kaleeto lagu dilay mas-uuliyiintii deegaanka Garasbaaley ee duleedka magaalada Muqdisho inkastoo bilihii la soo dhaafay ay amni ahayd magaalada Muqdisho iyo agagaaraheeda maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa soo kordhayay dadka mas-uuliyiinta iyo shacabka isugu jira ee dagaalamayaasha al-shabaab ay qaraxyada ku dhameynayaan ilaa iyo hadda ma jirto cid si dhaba u sheegatay weerarkan ka dhacay degmada Yaaqshiid inkastoo falalka noocan oo kaleeto ay geystaan dagaalamayaasha ururka al-shabaab iyo Daacish imakasta qodobadii dunida 4 sano kadib madaxweyne Donald Trump ayaa gabi ahaanba isaga hulelay aqalka cad ee Mareykanka laga maamulo khudbad sagootin ahayd oo uu shacabku u jeediyay ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Donald Trump inuu yahay hogaamiyihii ugu wanaagsanaa xisbiga madaxweyne Donald Trump ee jamhuuriga ayaa xubnaha ugu sarreeya waxa la filayaa in xafladaasi ay goobjoog ahaadaan madaxweyne Biden ayaa diyaarad looga soo qaaday gurigiisa waxaana imika uu ku sugan yahay aqalka kabitaalka halkaas oo lagu caleema saarayo isaga iyo ku xigeenkiisa wararka qaar ayaa tibaaxaya in halis aad u weyn ay ka jirto goobta lagu caleema saarayo madaxda wadanka Mareykanka gaar ahaan aqalka Capitol Hill wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka Mareykanka sida Washington iyo New York ayaa intooda badan albaabada loo laabay iyaga oo laga cabsi qabo in taageerayaasha madaxweyne Donald Trump weerar ay ku soo qaadaan amaba ay geystaan falal ka dhana amniga in ka badan 25 kun oo askari oo ciidamada gaarka ayaa ka qayb qaadanaya sugidda amniga taariikhda wadanka Mareykanka waa markii ugu horeysay oo xitaa ay ciidamada gudahooda ay kala shakiyaan waxaana hay'adda sirdoonka dalka Mareykanka FBI-da hadda la warinaya in si weyn ay xitaa ciidamada indhaha ugu hayso madaxweyne Donald Trump ayaa loo sii qaaday gobolka Florida halkaas oo la sheegay in noloshiisa inta ka hartay uu sii joogi doono waxa kale jirta dacwado adag oo uu wajahayo madaxweyne Donald Trump kuwaas oo ku saabsan inuu qalalaas u horseeday dalka Mareykanka oo dimuqraadiyadda caan ku ahaa ka gadaal markii taageerayaashiisa bishan ay weerareen aqalka Capitol Hill ee golaha Congress-ka dalka Mareykanka halkaas oo shahaadada guusha lagu guddoonsinayay Joe Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris in ka badan 150 sano kadib Mareykanku waxa uu wajahayaa xaalad adag oo dhinaca amniga ah iyo siyaasad aad u kala fog waxaase la filayaa in madaxweyne Joe Biden iyo ku xigeenkiisa ay u qalab qaataan shacab uu kala geeyay hogaamiye mayl adag fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe si aad u hesho wararka muhiimka ah ee aynu halkan soo gelinayno warkii aad ka daawanayseen warbaahinta Deegaan TV ayaa inta ku dhan warkan warka xigeentaan ku kulmi doono nabadgelyo